بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال كسو دوادا channel كيغا أستاذ حبيب عبد الرحمن فضلا هديئات كعسبتهاي سبسكرايب تسارو قنبليل كفورو سي أي برامجتو هدباي كوسو قاران إن شاء الله تعالى عاوة وحين كهل دونا برامج علاجي oo ku saabsan qaabka ugu fudud ee aad xanuunada macaanka aad iskaga daweyn karaysid adiga oo gurigaaga jooga waxaynu ogsoonahay muddooyinkan dambe in xanuunkaasi faraba-an ku hayo dhammaan bulshada Soomaaliyeed xanuunkaasoo inta badan ka imaanaya habnololeedka bini'aadanka ama habnololeedka aynu u noolnahay ee maalinlaha ah waxaynu ogsoonahay xanuunkani waayadii hore in uu ku badnaan jiray dadka age-ka ah dadka da ahaan 40 famaa fooq 40 jir iyo wixii ka sareeya laakiin hadda waxaa soo fara badanaya xataa dhalinyartii in uu faraba-an ku hayo xanuunkan waxaynu ogsoonahay walaalayaal in uu yahay cuduradii muddooyinkan dambe ee aakhiru zamanka aadka iyo aadka usoo fara badanayay uu ka mid yahay sidoo kale waxaan in badan kasoo sheekeeyey xanuunka macaanku inuu marar fara badan ku yimaado can dariiqa alcayni walxasad wa can dariiqa asixir inta badan uu qofku markaa u baahan yahay inuusan ku degdegin dhakhtarka inuu aado laakiin marka koobaad uu u baahan yahay naf ahaan isagu inuu isku cilaajiyo qaab maadi ah iyo qaab diini ah qaabka diiniga ah dabcan waa idii soo sharxay oo waa qofku inuu qur-aanka isa saaro cilaajaad islaamiya qaato qofku inuu qaab islaamiya isku daweeyo wahada afdal shay waa waxa ugu weyn kalaamullah wax ka culusi ma jiro qaabka labaad ee soo labeynaya waxa weeyaan waa qaab maadi ah laakiin maadigu ma aha inaad intaad dhakhtar u tagtid dhakhtarkiina uu kiimika kugula degdego laakiin waxa weeyaan waa qaab dabiici ah oo aad xanuunkan uga takhalusaysid adiga oo gurigaaga jooga waxaynu ogsoonahay walaalayaal in xanuunka macaanka ah adduunka kan dhakhaatiirtu ay dawo rasmiga usoo saari karayaan oo qofka bini'aadamka jirkiisa ka kaxayn karta laakiin ma doonayaan waxay rabaan qofku in uu futurekiisa oo dhan daily lifekiisa oo dhan ku noolaado kiniinigaasi la qabsi buu leeyahay qofka bini'aadankana jirkiisa ayuu la falgalayaa liajli dalika wuxuu noqonayaa sidii warshad camal inuu sonkortaadii jirka markasta ka gubo maalintaad isticmaali weydadna jirkaagii already insulintii ilaahay subxana watacaala jirkan insulin wax la yidhaahdo ayuu siiyey insulintaasaana ka nuugta waxa loo yaqaana ama ka gubta waxa weeyaan sonkorta haddii markaa insulintaas meesha ay ka baxdo inta badan waxaa dhacaysa inuu sonkorta jirkii ay iskaga jirto sukara taraakumi wax la yidhaahdo marka dambe ay dhacaan oo marka waxa weeyaan jirkaagii sonkortii ay ka fara badato haddii sonkorta kugu fara badato xanuuno kale ayaa kuu gudbaya sida cholesterol beer subag iyo waxyaalaha lamidka ah waxaynu ogsoonahay walaalayaal xanuunka sonkortu inuu laba qaybood yahay nooc waxaa la yidhaahdaa almarad alxaqiiqi waa sonkorta dhabta ah walciyaadu billah inta badan caruurta yarar markay dhashaan ku dhaca inta badan ilmaha yarar ee dadka waxa weeye insulinta irbada la siiyo wahada marad alxaqiiqi iyo nooca labaad oo ku yimaada habnololeedka nolosha qofkii in uu sonkor fara badan maalin kasta iska cuno shaah sonkortu ku fara badan tahay cuntooyinka carbohydrateska ku fara badan yihiin iyo waxyaalaha lamidka ah marka waxaa jira dariiqooyin basiid ah oo looga takhaluso waxaa number 1 ah oo marka koobaad dhakhtarku faxas intuu kugu sameeyo sonkortaadii jirku bini'aadanka ah sonkortii uu kaydsaday jirku 6 bilood ugu dambeysay markuu dhakhtarku kaa checking gareeyo uu kugu yiraahdo waxay dhaaftay wixii ka sareeya 5.9 wixii ka sareeya ayay dhaaftay ama 200 mabaya 160 170 180 190 ilaa 200 wixii ka sareeya yani nidaamka dhakhaatiirta kuu garanaya
inta badan sukarka dabiiciga jirku u baahan yahay waa inta u dhaxaysa 5 ilaa 5.5 5.9 inta u baahan yahay. intaa markaad ogaatid dhakhtarku isla maalintaaba wuxuu rabaa dawo inuu kuu qoro. marka dawadaasi waa dawada inta badan dadka noloshooda baabi'isay, waa ta aynu maanta rabno in aad bedeshid, waa ta noloshaada oo dhan galaafatay, waana ta dad fara badan dhimashada u sababtay. dawadaas waa dawo business, waa dawada chemicada. marka maalinta koobaad ee lagaa helo horta ha cabsi fara badan iyaysan kugu dhicin, laana cabsidu waxa weeyaan waa qayb ka mid ah xanuunka oo qofka jirkiisa marka xaqiiqaba ku noqdo. waxaad u baahan tahay keliya marka koobaad inaad habnololeedkaagii bedeshid. dad habnololeedkaagii bedeshidna waxaad u baahan tahay in aad waxa loo yaqaano 2 bilood shahrayn mutataabicayn inaad soontid. 2 bilood ee mutataabicaynka ah ama soonkii nabi daa'uud calayhi salaam baad samayn kartaa. maalinna waad soomaysaa, maalinna waad afuraysaa. haddaad 3 bilood gaarsiin kartidna kaba sii fiicanba. balaas adigoo ku daraya cuntadii inaad bedeshid. cuntada wax kasto carbohydrates leh, cuntooyinka borotiinka leh, dhakhtar baa jira kuu nidaaminayo oo aad u tagaysid. cuntada borotiinka lehna waad cunaysaa, carbohydrates oo dhanna waad ka tagaysaa. marka aad ka tagtid waxa loo yaqaano waxaad balaas ku daraysaa inaad lugaysid ama riyaado samaysid ama exercise samaysid ama swimming pool aad samaysid, waxay doontaba ahaato. jirkaas inaad dhidid ka keentid marka calal aqal saaca maalintii 1 hour baa lagaaga baahan yahay. socodka orod maaha, waa socod caadiya oo rugucleyn ah oo yara maaragtay aad tallaabsanaysid. intaasaa ugu muhiimsan. intaa haddaad samaysid sonkortaas 3 bilood ka bacdi baad baaraysaa. sonkortaasi jirkaasi oo dhan way ka baxday. noloshaadii insulintii already miisaan fara badan baa kaa dhacaya oo dee number 1 weeye wax looba socdaaba waa in miisaanka la rido si insulintu ay u shaqayso. laanno cibaara can jirkaas sida barnaamijka sonkortu kaysato waxaa dhacaya duhuun fara badan baa dhacaya. waxaa dhacaya sidii dhiiqa camal in insulintu ay shaqadeedii ay gabto, ay qaban kari weydo. marka jirkii oo dhan baa sifoobaya. waxaa jirta unugyada in sonkortu ay kaydsato. unugyadii oo dhan bay markaa jirkaagu is cunaya. la carbohydrateskiiba waayay, sonkortiiba waayay, cuntoodii aad u baratay bariiskiiba waayay. wax kasta oo markii hore sonkortan kor u qaadaya oo dhan buu jirkaagu waayay. marka waxaa dhacaysa in sonkorti gabi ahaanba lagaa waayo oo dhakhtarku kugu yiraahdo negative aad noqotay. haddii aan bilowgii koobaad intaa aan lagu waafajin oo aad noqotay dadka dawada sonkorta lagu bilaabay nooc kasta ha noqoto, ama nooca koowaad oo irbada la qaata ah ama nooca labaad oo kiniinka la qaata, haddaad dadkaa noqotay ka minsana aad waday, maanta laga bilaabo waad joojinaysaa. maanta laga bilaabo go-aan baad ka gaaraysaa. waxaad qaadanaysaa cibaara can booskeedii aad ku bedelaysaa. welibana si joogto ah ma noqonayso, waa fatra mu'aqata. waana 3 bilood ee koobaad dawada tan cushbada ah oo halka kan lagu sanceeyay. dawada tan run ahaantii dad fara badan ayaa lagu tijaabiyey oo isticmaalay. أول شيء ودواء طبيعي وثاني شيء ودواء باريتان عافماد لغو سميي وثالث شيء ودواء ككوبان أشياء دينتينو إنو تلمامتي وعبارة عن خلطات فربضان دوادا 3 بلود كوباد أياد استعمال إساء قال كيدي إيو وحي وضطات لمان تفاصيل دي قاب كادو استعمال إسيد. dawadaasi 7 geed bay ka samaysan tahay, waana dawo naajix ah. waxaa dhacday in fara badan walaalo dunida daafaheeda kala jooga oo aan u diray in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku shaafiyey oo uu xanuunkii uga dulqaaday. waxaa qisooyinka cajiibka ah oo maanta markhaati noolaha ah ee jooga
gabar Soomaaliyeed oo walaasheen ah waxaan filayaa waxay ku nooshahay dalka Canada. gabadhaasi muddo dheer xanuunka sonkorta type 2 ayay la nooleed. dawadaas ayaa maalin maalmaha ka mid ah aan u diray. dawadaas hadday qaadatay run ahaantii dhakhtarkii wax cajaa'ib ah oo jirkeeda uu la yaabay buu ku arkay. wuxuu ku yiri waxa loo yaqaano systemka markii hore uu isaga dawada u qori jiray systemkeeda uu la socdo. inta badan qofku markuu sonkorta qabo dee dabcan sonkortiisa taraakumiga ah ta 6 biloodku markasta waa xataa hadduu dawo ku dajiyey faxaska marka qofka la baaro oo baaritaanka laga qaado inuu sonkor qabo way soo baxaysaa. laakiin faxaskii uu dhowr jeer buu baaray sonkortiibu ka waayay gebi ahaanba jirkeeda. wuxuu kaloo arkay mustawaha jirkeeda in uu habka unugyada ama insuliintu ay u shaqaynaysaa ay tahay normal caadigeeda. awalna dawadii ay qaadan jirtay dawo kiimika ahayd oo dawo insuliintii dishay already bay ahayd oo la-aanteed aysan shaqaynin. marka uu weydiiyey maxaad isticmaashay, marka umaysan sheegin. waxay tiri alxamdulilah yacni waxa weeyaan un keliya lifestyle-kayga baan bedelay. marka waxa loo yaqaan laana gaaladu way kasoo horjeedaan in dawooyin herbal ah oo dabiici ah aad isticmaashay. waxaa kaloo jira markhaatimo noolaha maanta jooga walaal kale oo Soomaaliyeed oo isna xanuunkaas ay ku dhacay oo maalintii koobaad aan ku iri bilow oo 3 biloodii koobaad joogteeyay ilaa al'aanadaana aan sokor dambe kaliin aan u qaadan baa jira. waxaa kaloo jira dad fara badan oo gadaal kiniinka iyagu qaadan jiray ka bilaabay oo dawada ku caafimaaday. natiijada dawada tan waxaad garan kartaa isbuuca koobaad. waxaad dareemaysaa in marka koobaad ay kuu bedeshay booskii kiniinka. marka labaad waxaad dareemaysaa in aadan u baahnaan doonin marka aad 3 bilood dhamaysatid. oo haddaad baaritaan samaysidna idama allah insha allahu tacaala jirkaaga bini'aadanka ay ka saarayso. dawada qaabka aad u isticmaalaysid subaxii iyo habeenkii min 1 malqacad quraacda iyo cashada ka hor koob caana oo diiran ayaad ku qaadanaysaa. koobka caanaha ee diiran baad ku cabaysaa quraacda ka hor iyo cashada ka hor. danna waxaad samaynaysaa waxa loo yaqaano waxaad cabiraysaa sonkortaada. dabcan inta badan markaad sonkor qabtid guriga waxaa ku yaala bahalka cabiraada waad eegaysaa cabiraada sonkortaada. marka waxaad arkaysaa in isbedel uu yimid. marka dawadan insha allahu tacaala walaalaha u baahan meel kasta oo aad joogtaan insha allahu tacaala waa idinku soo diraya biidni illaahi almawla. baaraka allahu fiikum.